baxday isoo sheego isoo ogeysi markii cidadii ka baxday nabiga uu tii waxay rasuulka ilaahay laba nin bay soo doonay nin waa Abu Jahm nin waa Muawiya ibn Abi Sufyan wa qabaysh carab u sharqoday labada nin bay soo doonay keen guursada nabigu wuxuu ku yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi nin kale ila Abu Jahm ninkaasi waa nin aan u shakadin garabkiisa ulbu mar walba xamaarsay maxaa laga wadaa riwaayad kala cadaysayo waa nin dumarka garaaca mar hadduu dumarka dilo ha guursanin hayr ushan u watahay khatar baba keliya ku dili ha guursanin Muawiya nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waa cayd aan xoolo ka nixin waxba kuma siin karo kuma biiri karo isagana ha guursanin yaa guursada rasuulka ilaahay ankihu Usaama sallallahu alayhi wasallam Usaama guurso Usaama waa kee aadiiba adoon ahaan jiro la xoriyay isagana waa mawla wa usradi nabigeena sallallahu alayhi wasallam aadiina nabiga jeclaa isagana uu jeclaa nabiga sallallahu alayhi wasallam Usaama guurso nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay tiri waa ka haday marka guurka Usaama waan ka haday markaasuu nabigu ugu celiyay guurso Usaama waan guursaday biti ilaahay baa khayr badan iga siiyay markii dambana waan kantayo يعني waan ku farxay oo waan kantay inaan guursaday Usaama guursado ragii carbeed ka doortay Bilal ibn Rabah oo garanaysaan xabashiga ahaa isagana wuxuu qabay gabadh Quraysheed Abdurrahman ibn Auf walaashi Hala ayuu isaguna qabi jiro xaas u ahay wuxuuna ahaa Afrikaan ku ahaa xabashi ku ahaa نعم diintani mujtamacii ay gashay waxay ka saartay cudurradii ijtimaaciga ah cudurradii bulshada isxaqiridii isiyaasadii haysooci kulli way ka daawaysay markaas waxay isu dhex gashay dad walaalo ah oo siman oo taqwa iyo alla ka cabsi akhlaaq iyo diin inay ku kala fiicayeen abtir aan ku kala fiicnay sidaasay diinteena wax u daawaysay laakiin nabigeenu wuxuu sheegay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi arrimo jaahiliyadii ka mid ah xumaantii gaala iyo dhaqan xumadeeda laga soo gaaray waxyaalo ka mid ah ummadaydu daynaysa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxaana ka mid ah oo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam in aabayaashii awiyada iyo nasabka lagu faano aabahay baa kan ahaan jiray awiye baa kan ahaan jiray la dheeraanu nahay ree hebel baanu la dhahaa kanaanu ahaan jirnay in lagu faanaay waa jaahiliyadii gaalada ka soo jeeday umadayduna daynaysa buu nabi maxamed yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wa sadaqa rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam warunti maanta maxay dhex yaala qabaa'ilan oo Soomaaliyeed ayaa taariikh dheer la soo dulminay taariikh dheer la yasay taariikh dheer la xaqiray taariikh dheer la nasab soocayay yaa dulmiyay yaa sidaa ku sameeyay yaa damiirkooda dhaawacay waa walaalahood waa isku diin isku luqad bay ku hadlaan waa isku midab waa isku dal waxay ku kala duwan yihiin ma jiro war maxaad ku yeesteen oo ku xaqirteen oo u faquuqdeen laba yaqaan heer wuxuu gaadhay la yidhaahdo heer wuxuu gaadhay maanta uu maraya meeshii dulmigan iyo jaahiliyadan iyo xumaantan iyo muxuu ahay nasab soocani diintu ay baabi'in lahay dhaqanka wanaagsan ay baabi'in lahaa caqligu baabi'in lahaa ayaa maanta waxay gaadhsiisan tahay in la dilo oo la gubo maxaa loo dilay wuxuu ka qayb qaatay laba dhalinyaro ah oo xalaal isku guursaday inay isguursadaan buu ka qayb qaatay waa in la dilo hal la dilee inta haddii lagu dayn lahaa sharku waa isdhaamaaye haddana hal la gubo war maxaa loo gubo diinta ilaahay ka mid ma
murtad diinka baxay gaal ilaahay inta uu necab yahay waxaa ugu shar badan nin intuu islaamay diinta ka noqday kaa laftiisa in la gubo maaha gaalka asalka gaalnimadiisii weli ku sugan ee dagaalamaya ee muslimiinta laynaya markii laga xoog bato in la gubo maaha murtadka diinta ka baxay in la gubo maaha saas daraadeed baa nabigu diiday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh war dad allaha iskale unbaa wax ku ciqaabay addoommada looma ogola inay dad wax ku ciqaabaan war dembigu galay weynaa ilaa la gubo maxaa loo gubo calashaani waxa weeya waa jaahiliya ceeb bay ugu tahay wejigeenna saaran taariikhdeenna iyo sharafkeenna dhaawac weyn bay ku tahay in dad walaalaheen ah oo inala diin ah oo inala dal ah oo inala midab ah oo inala luqa ah oo waxba inagaga duwanayn in dhexdeenna aan yasnoon xaqirno oo lagu ciyaaroo la dulmiyo taariikhda intaa leeg maantana ay socoto ceeb weyn bay nagu tahay muslimiin bay ceeb inugu tahay soomaalina ceeb bay inugu tahay dhaqanaadu liito waay wax caqligu aqbali kara maaha wax damiirku aqbali kara maaha dulmigaasi in la baabi'iyo waa laga maarmaan taariikhdaa dheer soo jiray kafaaro kale male ilaa in laysugu tago sidii loo baabi'in lahaa mooyaane annaga saasaan u galaynaa gaaladiina waa u gacan haadinaysa bal cajaa'ibtan arag gaalkii iyo hay-adihiisii xuquuqdu way u gacan haadinayaan waxay leeyihiin walaalihiin baa idin dulmiyey annagaa cadaalad idiin samaynayna noo imaada annagiina waxaad aragteen baan ku samaynaynaa soo inay fitnoobaan ma aha soo markay waddamada gaalada tagaan inay yidhaahdaan diintii iyo dadkiiba ka soo tagnay soo laguma qasbin soo sabab looma noqonin dadkoodii iyo dalkoodii iyo mujtamacoodii bay ku dhex dulman yihiin gaala inay marka ka faa'iidaysatiyo hay-adaheeda ilan meesha dabacsan ee jilicsan bay mar walba mujtamaca ka galaadeen innagaa marka halkaa dhignay kafaaradu waxa weeye hoggaanka dhaqanka odayaasha salaadiinta ugaasiyada malaaqiyada isimada waajib sharciyo khaasa waxaa saaran hawshaa iyadaa dhaqan bay salka ku haysaaye siday u baabi'in lahaayeen inay ka tashadaan oo ay tilaabo ka qaadaan dowladaha iyo andimada waddanka ka taliya waajib sharciya waxaa ku ah iyo caqli intaba waxaasi sidii loo baabi'in lahaa inay iska saaraan xil weyn tilaabooyin muuqdana inay ka qaadaan sidii loo baabi'in lahaa jaahiliyada iyada mujtamaceenna innaga ka mujtamac aha aabbayeesheen baa soo galay awowyadeen innagii baa weli dulmigii kusii jirna waxaa waajib inugu ah dadkaasi waa baaba'een carruurtoodii baa baaba'day iyagaa baaba'ay waxbarasho male waa la tirtiray waa in loo hiiliyo waa in carruurtooda wax la baro waa in laga soo qaado meesha yaallaan waa in xuquuqdooda siyaasadda ay ku leeyihiin la siiyo meel walba markaad tagta andimada ka dhisani dhowrka qoysee ugu kuuskuusan baa wax qaybsanaya dadkii dulmanaana waa dulmaye away xuquuqdoodii siyaasadda away xuquuqdoodii bini aadanimada away xuquuqdoodii muslimnimada maadaama la yasay oo la dhibay oo la dulmiyey dhulka yaallaan waa in kor loo soo qaado soomaali kafaaro kale male dunuubtay ka gashay ummadda iyadaa kafaaradeedu waxa weeye inta hadhay in la badbaadiyo kor loo soo qaado oo ummaddan dulmiga laga qaado oo laga saaro oo aan sabab loogu noqonin inay fitnoomaan ama diintooda ka fitnoobaan waajib sharciyo ina wada saaran weeye nin walba qaybtiisa inuu qaato ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa ayaa dulmiga qaadi karta waxaan leeyahay iyaga gaalada idin beer la hawsanaysa oo diintiina idinka fitnaynaysa ha noqonina kuwa kud ka guuray oo qanjo u guuray ninkii idin dulmiyey ama adduunkaa laga goyn ama haddaan adduunka laga goynin maxkamadda rabbi buu hortegiyey laakiin diintiina ha ka fitnoobina sabab yeena idinku noqonin inaad diintiinnii qaaliga ahayd lumisaan oy gaala idinka faa'iidaysato dulmiga isagaa in diinta laydinka saaro maxaa yeelay waa dhaqana yaqaanaan gaaladu ayaga waxaan leeyahay mar labaad ilaahay baa idin abuurtay dad sharaf le baad tihiin karaamaad leedihiin
ilma aadan baa tihiin waxba laydinma dheera dhulka ha isdhigina ha isu dhiibina dulmiga laydinku hayo ha isu dhiibina madaxiina kor u qaada muslim baa tihiin ilaahay baa idin sharfay kor u qaada ha u istislaamina hana isu dhiibina hana u hoggaansamina mar walba isku daya inaad xuquuqdiinana dhacsataan rumaysaanna inaad bini aadamka maadaama muslimiin aad tihiin ugu sharaf badan tihiin gaalana yeena idinka faa'iidaysanin oo diintiina yaysan idinlu goynin oo intay diintiina idinka saarto gaalnimo iyo xumaan yaysan idinka hayn ayaga laftooda haddii ay bini aadam sharaftiisa ilaalinayaan dadka madmadow maraykanka laguma laayeen trump intuu soo istaago madaxweynaha maraykanka caddaannimo muusan ku faaneen madowgana muusan xaqireen haddii maraykanka u yaalla xorriyada ay talaaba gaala dhigayso baariis oo magaalo caasimadii ay yidhaahdaan waa xuquuqda bini aadamka iyo xorriyaadka caasimadeedii ay yidhaahdaan dhexdeeda kumuusan yaalleen hoteel ay ku qoran tahay muslim iyo nin madow ma soo geli karo nacam muslim iyo nin madow ma soo geli karo eyda iyo dadka madmadow ma soo geli karaan waa xaqiraad waa cunsuriya sidaas daraaddeed gaal ma xallin karo mushkiladan been bay sheegayaan hadday yidhahdaan way xallinayaan oo kuwooday xallin lahaayeen afrikaanka madow ee maraykanka ku dulman ee yurub ku dulman ayaa sida loo dhaami lahaa hadday wax qabanayaan laakiin qasadku waxa weeye ummaddan in diinteeda laga fitnayo diinta laga saaro haddii diintada laga saarana waa duntay nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh walaalayaal inuu yidhi bixasabi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim ruuxa shar waxaa ugu filan wax kale hadduusan samaynin shar waxaa ugu filan walaalkiisa muslimkaa inuu xaqiro walaalkiisa muslimkaa inuu yeso shaqo inuu ku xaqiro dulmigaasi ha laga tago ha lala dagaalamo ummadda ha laga saaro in sha allahu tacaala waa waajib ina wada saaran culimada madaxda hoggaanka dhaqanka aqoon-yahanka suugaanta iclaamka kulli ummadda qaybaheeda kala gedisan wada jir in looga qayb qaato barnaamij istiraatiiji oo dulmigaasi ummadda lagaga saarayana in la sameeyo oo aan xamaas iyo caatifo ku salaysnayn waajib sharciga ina saaro wey ilaahayna ruux kasta qaybta kaga aadan buu kala xisaabtami doonaaye saluu wasallimuu calaa khaatami alanbiyaai walmursaliin allahuma salli wasallim wabaarik calaa cabdika warasuulika muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin